inaad tahay muslim ku nool Jayna ayaa nasiib darro ah inaad soo noqoto muslim ka soo jeeda qowmiyadda Uighurka ee degta gobolka Xinjiang ee loo yaqaan Turkistaanta bari ayaa ka dhigan inaad tahay dhaxal sugu xabsi dhibare aan falin eed uu ku mutaysto jirdil iyo ciqaab aan joogsi lahayn. arinta muslimiinta Uighurka ayaa ka mid ahayd dhacdooyinkii ugu hadalhaynta badneed sanadkan dhamaadka ah. ugu horreynse waa kuwa muslimiinta degan gobolka Xinjiang, gobolka badkiisu yahay 6 meelood meel badka Jayna, gobolka isha u ah 80% wax soo saarka naaftada ee Jayna ahna 90% gumaca soo saara macdanta uraniumta ee Jayna, gobolka hodanka ah ee ay ku nool yihiin faqiiriinta muslimiinta ee u dhiban inay yihiin islaam. sheekadan ayaa soo bilaamatay kadib markii Shiinuhu uu xoog ku qabsaday gobolka Turkistaanta bari ee gooniisutaaga ku dhawaaqay kadib kacdoon guuleystay intii u dhaxaysay 1933 ilaa 1944. waxaase gacanta Jayna ay toos u hoos yimaadeen sanadkii 1949 oo dalka Shiinaha uu la wareegay xisbiga Shuuciga ee wali awoodda dalka gacanta ku haya. waxaana magaca gobolka oo ahaa Turkistaanta bari loo bedelay Xinjiang oo la micno ah xuduudda cusub. dadka Jaynaha ayaa tirokoobyadii ugu dambeeyay ee la sameeyay waxa ay ku sheegeen inay yihiin in ka badan 1 bilyan iyo 300 milyan oo qof. tirada muslimiinta Jayna ayaa ah 23 milyan oo qof oo ka soo jeeda 10 isir oo laga tiro badan yahay. waxaana ka mid ah labada qowmiyadood ee waaweyn ee kala ah qowmiyadda Huiga oo aysan dawladdu dhibaato badan u geysan iyo kuwa Uighurka ah oo ay dawladdu u aragto isha dhibaato ee dalka. dadka ka soo jeeda qowmiyadda Uighurka asal ahaan waa mid ka mid ah qabiilada Atraagta ee halkan degay qarniyo ka hor, waxaana ay ku hadlaan luqadda Turkiga. gobolkan waxa uu islaamku soo gaaray dabayaaqadii qarnigii 7 ee miilaadiga. tirada qowmiyaddan Uighurka waxa lagu qiyaasaa 10 milyan, waxaana ay dawladda kala kulmaan dib aan tiro iyo xisaab lahayn. heer deegaankoodu uu noqday goobaha ugu ciidanka iyo ilaalada badan, qaab walba ayaa loogu dhibaa dhulkooda, heer lagu qasbo inay ku shubtaan mobilada applicationno la socda hadallada iyo xiriirada ay sameeyaan. waxaa xabsiyo aad ilaaladooda ay u daran tahay la dhigay in ka badan 1 milyan oo ka mid ah. xabsiyadan ayay dawladdu u taqaanaa cusbitaalada, kuwa ku xiranna waxa ay u taqaanaa bukaanno laga dabiibayo fayraska diinta. looma ogola inay kulamo yeeshaan, masaajidda looma ogola inuu ku tukado qof ka yar 18 sano. ramadaanta halkan lagama ogola in laga soomo, khamriga iyo sigaarka isticmaalkoodu waa qasab. waxbarasho aan ahayn tay rabto dawladdu oo ah cilmiga xisbiga Shuuciga ah oo qasab lagu barto ma ahane mid kale oo adduunyo ma jirto. waxa ay la kulmaan takoorid bulsho oo aan caadi ahayn. waxaa wadooyinka gobolkan ku xiran kaamirooyinka wadooyinka ee aqoonsada wajiyada si loola socdo dhaqdhaqaaqooda. Goolbahaar waxa ay ka mid tahay kuwa laga tirada badan yahay ee Uighurka ah. waxa ay u soo baxsatay Turkiga oo ay ku nooshahay. waxa ay u xirnayd dawladda Shiinaha 1 sano 3 bilood iyo 10 cisho. waxa lagu xiray xabsi ku yaala galbeedka Jayna. waxa ay la kulantay hawlgalka loo yaqaan dhaqista maskaxda. يقومون بحقننا هنا أو هنا. كنا نخرج ذراعنا من فتحة موجودة في الباب مرة في الأسبوع. اكتشفنا بعد مدة أنه بسبب هذه الحقن انقطعت العادة الشهرية لدى النساء. بالنسبة إلي فقد توقفت عادتي الشهرية بعد شهر من اعتقالي. بعد حجزنا ننسى كل شيء، ننسى أقرباءنا، عائلاتنا، لا نفكر بأحد. لم أعد أذكر حتى مكان ولادتي. كانت تراودني أفكار بأنني ترعرعت في ذلك المكان. kutubta ayaa la gubaa, masaajidda ayaa albaabada la isugu dhuftaa, culimada diinta ee ka soo jeeda qowmiyadda Uighurka ayaa la laayaa. sidan waxaa Twitterkiisa toddobaad ka hor ku soo qoray laacibka kubadda cagta ee Arsenal Mesut Ozil, isagoo oo sheegay in gaf ay ku tahay dalalka islaamka iyo warbaahintooduba inay ka aamusaan dhibaatooyinka lagu hayo muslimiinta Uighurka. arinta Ozil ayaa waxa ay heshay garab istaag heer caalami ah, waxaana ay mudaharaadyo lagu dalbanayo inay helaan xuquuqdooda ay ka dhaceen afaafka hore ee safaaradda Jayna ee ku taal magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. sidoo kale waxa ay ka dhacday magaalada Jakarta ee dalka Indonesia. madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa ugu goodiyay Jayna in uu jari doono xiriirka dhaqaale ee labada dal ka dhaxeeya haddii aan la dhaafin ayuu yiri dhibta lagu hayo muslimiinta Uighurka. sidoo kale ra'iisul wasaaraha Malaysia Mahathir bin Mohamad ayaa ka digay falalka arxan darrada ah ee loo geysanayo muslimiinta Uighurka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ka hadashay. qaramada midoobay ayaa arrimahan sidoo kale ka hadlay, balse ma jirin wax cunaqabatayn ah oo lagu soo rogay dalkan. laakiin dawladda Jayna ayaa iska diiday eedeymahan,
waxaana wargeyska Global Times ay u sheegtay inay xaq u leedahay inay kahortag ku sameeyaan wax kasta oo ka hor imanaya sugidda amniga gudaha dalkeeda xitaa ayay tiri haddii ay sababsanayso nabadgelyada dalka in loo laayo dad ama koox dhan loo dilo China waa dal dhaqaale balse waa u xabsi muslimiinta Igoorka ee aan helin gurmadka dalalka islaamka waliba kuwooda ugu dhaqaalaha badan ayaad moodaa inay ka aamuseen Ciise Maxamuud Ciise wararka SBC Garowe